asxaabta qaaliga soo dhawaada meel kasta joogtaan fideogana maanta waxaan ugu talagalay Facebook sidaad la socotaan 25kii bishan ayaa 50 milyan oo accounts la compromise gareeyay ama la jabsaday taasoo loo isticmaalay marka aad telefonkiina ku jirtaan ee Facebook ku jirtaan oo kale meesha view as uu dhahayo uu ku tusayo sidii adigoo banaanka ka joogo kale aad u fiirin kartid Facebook-gaaga account-kaaga halkaasoo marka aad click siisay and then markaad ka noqotay uu weli uu magaranaysaa ay u isticmaalayaan sidii ay marka account-kaaga la wareegayaan ay account-kaaga information-kiisii wixiisii dhex gelayaan ayagoo u isticmaalaya view as-kii aad adigu click siisay marka Facebook waxay sheegeen inay disable gareeyeen feature-kaas midda kaleeto haddii ay jiraan ababka sida gameka markaad ciyaaraysaan oo kale ama waxyaabahaas uu ku dhahayo Facebook-gaaga inaanu isticmaalno ma noo ogoshahay eed okay leedahay oo kale ababkaas oo kale in aad remove ka tidhaahdo haddii ay jiraan ma garanaysaa same password oo u isticmaalaysaan account-nada kale ee social networks-ka kale isticmaashaan sida Instagram-ka waxaas oo kale lacala aad same password haddaad u isticmaashaan uu qof helo password-kaas oo kale uu ku qiyaasi karaa kuwaagana marka waxyaabahaas oo kale laakiin qasab ma aha inaad password-ka bedesho midda labaad Facebook-ga dadkii oo la compromise gareeyay 50 milyan-ka log out buu yidhahday Facebook automatically iyo welibana 40 milyan oo kale oo lagu daray oo feature-kaas view as-ka isticmaalay marka waxaan tusayaa sidii aad uga remove garan lahayd abka Facebook-gaaga hadduu jiro wax ab ah oo isticmaala Facebook-gaaga kula isticmaala marka aan tusayaa halkan markaad halkaa yarka click ku siiso geeskaas ee setting-ka tagto settings-ka markaad tagto ayaa waxaad fiirinaysaa halkan ay ku qoran tahay apps and websites kadibna wuxuu ku tusayaa abka hadda active-ka ah imika Facebook-gayga oo kale account-kayga waxaa hadda active ah waa Netflix so click baad halkaas siinaysaa kadibna waxaad leedahay remove kadibna waxaa halkan wuxuu ku saarayaa uu ku leeyahay sidoo kale waxaad dhiliidaa boostooyinka ama fiidiyoyada iyo sawirada uu Netflix uu magaranaysaa ku publish gareeyay Facebook-ga marka waad iska dhiliidaysaa kuwaasna waxaa laala wixii uu isagu isticmaalay inuu maadaama kula isticmaalayo de account-kaagii marka isagana waxaan leenahay remove isagii wixiisa dhan kadibna done baad leedahay wakaas imika wax active ah waa zero wax ku jira ma lahan expire aan fiirina maanta kuwaasoo dhan baan u isticmaali jiray anigu waa sidaad imika ba aragtaan aan u isticmaalay okay halkan oo kale waxaan remove gareeyay waa labadaas kuwa kalena waa expire labadaasna waan remove gareeyay ka dhigan tahay marka halkaasaad ka fiirin kartaa marka xaggaasaad ka fiirin kartaa hadday jiraan wax account ah oo wax oo abaan jeedaa ama websites oo Facebook-gaaga kula isticmaala oo active ah halkaasaad ka remove gareynaysaa aad iyo aad baad mahadsantihiin oo sidaas security-ka ha lagu dadaalo